xaaladda saamaynta go'aankii xukuumaddu ay ka soo saartay qaadka ayaa xalay jahawareer ku riday magaalada Hargeysa. qaadka ayaa ka soo galay afarta koone ee magaalada Hargeysa waxaanu ka yimi magaalada Balecabane qaad isaga oo kan koonsan dhinaca kalena gobolka Hawd magaalada Baligubadle ayaa qaad badan ka soo galay iyadoo degmada Axmed Dhagax lagu iibinayay xalay. dhinaca kalena xaafadda Sheekh Cumar ilaa iyo Biibsiga ayaa waxa qabsaday qaadka ka soo galay dhinacaas iyo Balecabane. dhanka kalena 11 wixii ka dambeeyay habeenimo qaadka 571 ayaa salaxley ka soo goostay isla markaasina qabsaday degmada Maxamuud Haybe iyo suuqa bartamaha magaalada Hargeysa. dhinaca kalena deegaanka Galooley oo galbeedka magaalada Hargeysa ku yaal iyo Xeedho oo waqooyiga magaalada Hargeysa ku yaala iyo degmada Cadaadle ayaa waxa ka soo galay qaad wadaniya oo isaguna aad u tayo sareeyay. guud ahaan dadka qayla ayaa helay qaadkoodii haba qaale han noqday. dhinaca kalena meelihii lagu cunayay iyo maqaaxiyihii iyo goobihii sharaabka ayaa haawanayay iyada oo dhalinyaro cadhaysan ay xalay xidheen jidka galbeedka magaalada degmada Koodbuur xaafadda Jigjiga yar xarunta Telesom horteeda ilaa iyo guriga galbeedka Muuse Bixe. dhalinyartaas oo cadhaysnayd ayaa ku dhawaaqayay nacaybka ay u qaadeen madaxweynaha Soomaaliland iyo go'aamada uu ka soo saaray qaadka iyaga oo ku dhawaaqaya hadallo aan fiicnayn. dhalinyartaasi ayaa wixii meesha soo maraba dhagaxyaan ku tuurayay gaadiidkana gacanta ula tagay. dhanka kalena magaalada galbeedkeeda Indha Birta dhinaca ka xiga ilaa Sacaadadiin ayaa iyadana dhalinyar kadoodsani halkaasi ay joogeen. guud ahaan nacaybka loo qaaday go'aankan iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Bixe ayaa labadii habeen ugu dambeeyay cirka isku shareeray iyada oo goob kasta oo la joogo lagu hadalhayo go'aanka lama filaanka oo qaatay isaga oo ku taageera waaye isla markaasina cadhax hoogan dusha lagaga tuurayay madaxweyne Muuse Bixe iyo xukuumaddiisa. si kastaba ha ahaatee waxa eeday maqaaxiyihii yaryaraa iyo goodhiyihii nolosha hoose lagu kabayay iyadoo aanu jirin wax udro oo la yidhaahdo corona laakiin dadku corona hortii ay sii eedeen xisbiga kulmiye iyo taladii ay u coodeeyeen. xaaladda ayaa la filayaa caawana in ay ka sii darto oo qaadku uu soo goosto xukuumadduna halkaasi ku lacag weyday. guud ahaan xalay qaadku waxa uu u soo galay si habaqla'a qiimaha iyo tayadiisuba ha isbedesho laakiin dadku waxa ay heleen qaad tayo leh oo wadani iyo isugu jira Itoobiyaanba. xaaladda koronaha ayaa waxa ay Soomaaliland ku noqotay xaalad adag oo lama filaana isla markaasina albaabada u laabtay noloshii dadka kagana soo horeeyay cudurka koronaha. xukuumadda Soomaaliland ayaan dan iyo muraatoona ka lahayn nolosha sii silcaysa ee shacabka Soomaaliland iyadoo albaabada u sii laabaysa maalinba meesha iftiin kale. dhinaca kalena masaajidada caasimadda magaalada Hargeysa ayaa dib u camirmay isla markaasina taraawiixda si weyn looga oogay oo looga tukanayay. basaska ka goosha magaalada Hargeysa ayaa iyaguna jabiyay go'aankii isla markaasina 30 qof iyo 25 kiis ka qaadayay iyadoo qiimuhuna uu isbedelay oo 3 kun lagu qaadayay. shacabka Soomaaliland ayaa go'aan kasta ka soo baxay guddida ka hortagga cudurkan baas waxa ay ka sii qaadayaan sas iyo lama arag iyo amakaag albaabada ay hoosta kaga xidheen. aadan cabdi ciidle Radio Halgan Hargeysa.